casho sharaf aad u qurux badan ayna soo qaban qaabiyeen maamulka ururka Iftiin Shukri Siciid iyo Raaxa Geesay iyo maamulka Puntland Axmed Cabdi iyo Xasan Ashkir ayaa lagu martiqaaday wasiirada ganacsiga Puntland dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland ayna ka mid tahay Ijaaba Siciid kuwaas oo wadanka Holland u joogay shirar looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya kulanka cashada ay hadallo kooban ka jeediyeen wasiirada ayay mahadcelin kadib waxay sheegeen in qurba joogta rabta in dalka ay maal gashadaan loo sameyn doono cashuur dhaaf loona raadin doono dhul ay ganacsigooda ku bilaabaan يعني رجل ما يكرم أنا يرد أنا وين الدين بنوتها سيدنا لو سلوا إنه هم سلوا وين وإحنا نقول يسافر خلت أنقلين نقول يسافر عن رأي كموضوع كلنا عشان إن شاء الله تعالى حنا جينا هاي كنا فرحنا وكم عاد علينا ومركي لبعض خالد أتفرجوا وقالوا وبرد عادي وسنتع هذا كانوا وخلاص وولدنا كانوا احنا نفس الانسان ضد كلنا نقول ضد مشهور الحمد لله وتزنوا حكينا هاي والنور شباب وطبعا بارك الله فيك الله يبارك يعني في المكفر السفر عاشور غير كعاشور يا إنا نتيجة وفيتا واحد سوق لجسا فيتا واحد نقول لي دي هذه وما دام ما الجليس بين الساعة وأنت صوقف للشقيق قال لي والشقاء أبو الكلام وواحد من السدلية نقول كنا اللي لنا هذه تاسنا واشتغلنا وتعالى ورمتي لنا جوا وعلى الكعب سنة يا مركا هنا سود واتان وذكرت بعدها إيكتان وزدها شقية لك فكرتان كما العلمية السكر بالنذا يكمل أكثر غير هولند هذه سوماليا أي أكبر كلا قيب سنة هذه وحنا الفلان دائرة كبت قبطان ماشي أتاجنتي لحدنكي إلا سجاشن يحولاجي هذه أبنية كما هتلاقي إسكندرية إن هذا أما هي أدو شراكة كتيرين أما جناح سأكون شركودان إذا كاسف في رقبة الخضر فهذا كحدا عن سياسيين تيجي أكفل إنسان حالجية بين الكلهم ugu dambeyntiina qaban qaabiyaashii casho sharafta iyo marti sharaf kale oo ka hadashay ayaa dhamaantood sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in wasiiradu muujiyeen in dadka Soomaaliyeed jiraan wax badan oo ay wada qaybsan karaan hadaladoodina waxaa kamid ahaa dumarka Soomaaliyeed ee magaalada Amsterdam caawa halkaan waxaan ku soo dhaweynay wasiiradeeni Soomaaliya ee ganacsiga wasiirka dawladda Soomaaliya federaalka iyo wasiirka ganacsiga Puntland iyo wasiirka ganacsiga ee Somaliland waxaan aad ugu faraxsanahay ayagoo isla socda oo halkaan ka wada qayb qaatay barnaamij horumarin ah oo wadankii ganacsi lagu soo kordhinayo dadkii qurba joogta ahaa oo rabay inay wadanka ganacsi u tagaan iyo dadkii investorska ahaa ama Dutch investorska ahaa oo rabay wadanka inay maal gashadaan ayagoo shirar badan kala qayb qaatay dawladda waa wax horumar ah aad baan ugu faraxsanahay in waliba waxaana loo keenay 3 qof oo tusaale ah oo ka kala yimid Holland qof deganaa Ijaaba Sheekh Xasan iyo Maxamed oo ka yimaaday Sweden aad baan ugu faraxsanahay maanta inay halkaan ugu soo booqdeen wasiirka ganacsiga Puntland Somaliland iyo Soomaaliya waxa uu imaadeen inay ka hadlaan ganacsiga iyo sidii loo horumarin lahaa ganacsiga wadankeena aad baan ugu soo dhaweynaa aad baan ugu faraxsanahay diaspora aad waxaan ka imi haddana aan u guuray Soomaaliya Puntland Garowe waxaan halkaas aan ka abuuray business inaan wasiirka ganacsiga Puntland mudane Cabdiwali Indhaguran aan ku soo dhaweynay dalka Holland waxa farxad iyo sida wanaagsan u qaabilnay sida isku duubnida leh waxaan rajaynayaa wasiir walba oo Puntland ka yimid sida ay si ka wanaagsan sida quruxda badan caawa casho sharaftii noogu dhamaatay Tawfiiq Shira Muuse Puntland TV magaalada